ummadda Soomaaliyeed waxaan qayb sameynaa laba qaybood. Qayb commentiska aan ka ducaayeen canugan yar iyo qayb jeebshow gacanta geliyeen. Dhammaan waxaan leeyahay kuwa oo commentiska canugan aan ka ducaayeen, kuwa jeebshow gacanta geliyeen iyo kuwa muuqaalka share gareeyeen. Ilaahay siin karaan noqdo. Meel aan soo socdo walaalkeena Cabdisalaan waxaan qaadi doonaa isbitaal kista yar oo walaalaha muslimiinta aan ka aruurini isbitaalka jeeyaan. حمدا وثناء لله فكم قد شرفنا نورا وضياء آياته قدرا ترفعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalayaal meel walba adduunka roogtaan waa walaalkeen Yaasir Axmed Geeslaab bartaas oo fiirsidaas waa Geeslaab official. haddii YouTube oo fiirsidaas waxaan ka codsaday subscribe iyo saarto si aan gaaro 1k. haddii Facebook ka fiirsidaas waxaan ka codsaday like iyo follow. 23 Abriil waxaan soo gelinay muuqaal aan ka hadalano wiil dhibeysan oo ka sugan degmada Afgooye gaar ahaan xaafadda Waanjeele. Warbankii daaline muuqaalka waa kanaaye ila daawo. Dhibane Cabdisalaan Macalin Isaaq waa wiil dhibane ah ku dhawaad muddo 7 sano oo la xanuunsan xanuun ka soo wajahi dhinaca jirka iyo gudaha. Cabdisalaan sidoo kale waxa uu dheera xanuunka la dhahaw qalalka. waqti xaadirkan waxaas ka sugan yahay Cabdisalaan Macalin Isaaq gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Afgooye. Cabdisalaan waxaas aan baahanyaa ummadda Soomaaliyeed meel walba adduunka rogaan inay anfidiyaan gacan naxariis leh. Macalin Isaaq Cali Kamas oo ah aabaha dhali Cabdisalaan ayaa nin sheegay doona Cabdisalaan xanuunkan haya meeshii ka soo bilaaway. Macalin Isaaq ummadda Soomaaliyeed muuqaalkan markii aan soo baahaynay kadib ummadda Soomaaliyeed waxaan qayb sameynaa laba qaybood. Qayb commentiska aan ka ducaayeen canugan yar iyo qayb jeebshow gacanta geliyeen. marka dhammaan waxaan leeyahay kuwa oo commentiska canugan aan ka ducaayeen, kuwa jeebshow gacanta geliyeen iyo kuwa muuqaalka share gareeyeen. Ilaahay siin karaan noqdo. meel walba adduunka roogtaan Allah siin xafido. isbuucan soo socdo walaalkeena Cabdisalaan waxaan qaadi doonaa isbitaal kista yar oo walaalaha muslimiinta aan ka aruurini isbitaalka jeeyaan. haddii oo qarashkan wadano qarash ka badan lanin soo sheegana ummadda Soomaaliyeed ayaan soo gudbiyaan. وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.